marka gabeere iyo cirre iyo la maxkamadeynaya maxkamad badbaadada qaranka ka shaqeynaysaa markaas laakiin wali waxaan ahaa garaniyalka meesha ka shaqeeya maxkamadda badbaadada maxay ahayd naftirkeedu waxa laga yaabaa jiilka maanta inaysan fikir badan ka haysan fikir badan lama haysto waxay ahayd maxkamad ay samaysteen maamulka militariga oo dalka xukumay sida ka dhacda meelo badan oo askartu ama dadka dictatorada oo meelaha ay qabsadaan hada iyo jeer waxay abuuraan maxkamad khaas ah oo dadka iskaga celiyaan ka soo horjeeda shanamooyina marmar la keeni jiray nin baadari oo meesha jooga toddobaadkii 2 goor keeni jiray meesha la aadi jiray marka waxyaalo kale oo weyn ma lahayn in shanamadaas la fiirsado in banoonigaas ama kubadda la fiirsado ama la ciyaaro maana wax kale ma aysan jirin magacan turunji ma adu ku raacay masaabu ka soo raacay awoowe maxamed ciise turunjiga lagu sheegay run waaya ta baasaboorka saas ay ugu qoran dad badan ay weydiiyay waxay yireen magacan maxaa laga wadaa arwadii waxay fiyeere dhihi jireen iyo 52 iyo 52 waxay tahay maqaanay arwa naloo soo waday arwa xamar laga furay abuur weyna soo raacno intaas sax socday ma qoonna maalin dhan socdaan aan filaa wixii ugu horeeyay arka waxay kor iyo ambada ka arkay hirarka cadcad waxaan u qaatay inay xoolo meesha maraya ma eri maaragtay abukaati turunji halkeebu waaga kugu bariyay habeenkii kacaanka dalkan u qabsanay habeenkii askartu ay la wareegaysay maamulka dalka subaxdii waxaan diyaar u ahayn via roman degana subaxdii waxaan diyaar u ahayn in baarlamaanka aan tagno oo madaxweyne la doorto xaloo kale waxa lagu heshiiyay lagada ku heshiisay inay biriyo kale 21 inay madaxweyne cusub doortaan dhibaatada kaliya jirta waxay ahayd hadaad fiiriso maanta United Nations kii meelaha ninka xildhibaanka hadlaanana waa inuu ku sugo ilaa ka tarjinto waqti meesha ku dhumo hadda United Nations saas ma afaf badan oo shana isku mar baxaya adoo Francisco hadlaya ya isku mar gabdhaha wax turjubaanaya Isbaanyool ku sheegayaan Ingiriis ku sheegayaan Carabi ku sheegayaan iyadoon la joojin ninka hadlaya inagu wax ismaana qabin wax iska ahayd wax iska ninka xildhibaanka waa amsa waliba haduu warka dheereeyo ninka shirka madaxda ka oo baarlamaanka xukuma wuxuu leeyahay hebel ogolaaw in la tarjumo warka ee sug